kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxay kala yihiin madaxda ugu sarreysa dawladda Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa wada kulmay markii ugu horeysay tan iyo markii ergeyga qaramada midoobay laga eriyay dalka waxaanu idin haynaa arrimihii ay ku heshiiyeen labada dhinac iyo falanqeyn warar kale caawana waxa kamid ah nolol adag oo murugo leh ayaa lagu soo waramayaa iyadoo barnaamijyada dawladda Venezuela looga soo horjeeday ay halkoodii ka sii socdaan warbixin ayaanu idin kaga haynaa waxaan kaloo eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Jigjiga oo ay rabshado ka dhaceen dalka Koonfur Afrikana waxaanu ka warrami doonaa sida diyaaradaha gaarka loo leeyahay ee yaryar ay u kacaan kala soo BBC News Somali Television raadiyaha online iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawiya caalamka habeen wanaagsan daawadayaal aniga maxamed cabdi xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa maanta la kulmay mas'uulka ugu sarreeya ee ka socda qaramada midoobay oo ah ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee xagga siyaasadda Rosemary DiCarlo waxaana markii ugu horeysay tan iyo markii dhawaan khilaafku uu soo kala dhaxgalay labada dhinac oo dawladda Soomaaliya ay ereday wakiilkii qaramada midoobay ee Soomaaliya Mr. Haysam wadahadallada ayaa la sheegayaa wadahadalladan kadib ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo ku xigeenka xogayaha guud waxa ay wada qabteen shir jaraa'id ra'iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen arrimo dhowr ah waxaana uu yiri waxaan ku heshiinay in UN-ku ay sii xoojiyaan dadaaladii ay wadeen si Soomaaliya ay u gaarto meesha ay higsanayso waxaan uga mahad celinay shaqada badan sanadaha badan UN-ku ama qaramada midoobay ay dadka Soomaaliyeed la garab taagnaayeen waxa kale oo ku heshiinay in ajandayaasha looga shaqeynayo dalka Soomaaliya ay dadka Soomaaliyeed iyagu madax ka yihiin adduunyada oo ay uga horeyso qaramada midoobay ay nagu caawin doonaan waxaan ku heshiinay inaan sii xoojino wada shaqeynta aan leenahay oo labada xafiiskooda iyo dawladda Soomaaliya ay aad wada shaqeyn doonaan waxa kale oo isla fahanay wax walba oo mugdi ku jiray sidaas daraadeed waan u mahad celinaynaa wagaag dhinaca kale ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay xagga siyaasadda Rosemary DiCarlo oo iyana hadashay ayaa waxay sheegtay in Soomaaliya ay muhiim u tahay qaramada midoobay isla markaana ay doonayaan inay Soomaaliya guulaysato waxaanay tiri ujeedadeenu waxa weeye inaan taageerno qorshayaalka Soomaalidu hogaaminayso waxaana ka wada shaqaynaynaa arrimo kala duwan oo ogolaansho ka haysta golaha ammaanka ee qaramada midoobay Soomaaliyana waxay ka joogtaa meel sare liiska golaha ammaanka aad ayaan ugu faraxsanahay in horumar laga sameeyay dhinacyada dawladda xuquuqda aadanaha xuquuqda haweenka iyo dib u eegista dastuurkaba waxaan ognahay inaad u diyaar garoobaysaan doorasho muhiim ah 2020 qaramada midoobayna waxa ka go'an inay taageerto planning for a very important election in 2020 and the United Nations is prepared to provide support hadaba waxa studio hela jooga wariyaha BBC da Mawlid Xaaji Cabdi oo isha ku hayay arrimahan Mawlid sida aad la socotaba labada dhinac waxa ay isla soo qaadeen in la helo hindise ay Soomaalidu garwadeen ka tahay arinta maxaa loo jeeday maxamed oo mahadsan tahay horta ugu horreyn kulankan wuxuu ahaa sida hordhac ku xustayba in khilaafkii qaramada midoobay iyo Soomaaliya soo dhaxmaray xal loo helo taa bedelkeeda dawladda Soomaaliya iyana waxay wadatay qorshayaal kale oo ah in arrimaha markay timaado dib u heshiisiinta dhaqaalaha dib u dhiska wadanka iyo si guud hawlihii qaramada midoobay ay hay'adaheedii iyo hay'adaha kale ee Soomaaliya ka shaqeeyo ay wadeen in gacanta loo soo geliyo dawladda Soomaaliya macnaheedu waxay tahay musuqmaasuqi wala dagaalan ay taagan yihiin waxaan rabnaa inaynu ku yeelano dakhliga Soomaaliya dhinaca maalgelinta dib u dhiska wadanka inaynu awood ku helno marka fariinta Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu diriyay sidaasi ay ahayd qaramada midoobay Rosemary way muujisay arintaasi waxayna sheegtay ahmiyadda Soomaaliya u leedahay markaad fiiriso xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres safarkiisa ugu horeeyay Afrika uu ku yimid Soomaaliya ayuu ka yimid markii la magacaabay iyadoo qudiyada oo markii labaad ay tagto magaalada Muqdisho marka waxa moodaa xagga isu soo dhawaansho in laga sameeyay Soomaaliya kale waxay aad uga hadlaysay marka laga hadlayo siyaasad loo wada dhan yahay oo kale macnaheedu marka waxay tahay in arrimaha siyaasadda
qaramada midoobe xafiis baa u joogay muqdisho la socotaa oo mas'uul ka ah arrimaha siyaasadda haddii tahay dib u heshiisiinta Soomaalida qudhida loo sameeyo kale dhinaca dhaqaalaha markaad fiiriso xitaa mushaaraadka la siinayo ciidamada ama xildhibaanada ama wasiirada hay'adaha UN ka gacanta ku haysta UNDP oo kale marka macnaheedu waxay tahay waan isku filannahay khilaafkiina aan xalino fariintan direynana waxay tahay ayay u maleynayaan inay tahay arintu in la helo nidaam Soomaalidu ay hormuud u tahay dhinaca dib u dhiska wadanka waqti dhan kale hadii aad ka eegto arrimahaas wax saameeyna ma yeelan karaan hada soo koobaya laba dhinac bay noqon kartaa dawladda inuu bareerayso qatar iyo inay dhiirinaan muujinayso qatarta markii la leenahay waxa weeye 30 sano wadanka Soomaaliya dawlad awood badan ka mid jirin dhinaca dhaqaalaha dhinaca markay timaado siyaasadda gargaarka waxa garhayeen ka ahaa hay'ado kala duwan oo ajnabi ah Soomaaliya markay imika waxay istusaysaa inay arintaas leedahay waxa imaan karta marka halkaas qatar dadkii arintaas gacanta ku hayay in loo arki karo nimankan inay yihiin raggan rag degdegayee bal aynu ku yara fogeyno taakada way imaan karta waxa kale imaan karta dhinaca wanaaga in Soomaalidu ay awood u leedahay inay awoodeedii wadanka iyo maamuladii iyo jihayntii wadanka dhinaca dhaqaalaha dhinaca dib u dhiska dhinaca jihaynta barnaamijyada Soomaaliya oo dhanba in la yiraahdo Soomaalidu ayaga isku filan oo qaadanaysa oo noqonaysa Waliid Xaaji Cabdi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay bal markaan haddii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa ciidamada ammaanka Suudaan ayaa xiray gabadh uu hogaamiyaha mucaaradka Sadiq Al-Mahdi dhalay sida ay qoyskeedu sheegeen Maryam Sadiq Al-Mahdi waa ku xigeenka hogaamiyaha xisbiga ummadda oo uu aabaheed hogaamiye ka yahay AFP-da ayaa soo warisay in la sii daayay kadib markii su'aalo la weydiiyay balse arinta wali lama xaqiijin رئيس الوزراء طليانيغا جوزيبي كونتي ayaa sheegay in 47 qof oo tahriibiyaal ah ay badbaadisay doon ay lahayd hay'ad samafala loo ogolaan doono in ay Sicily ku soo xirato saacadaha soo socda Mr Conte waxa uu sheegay in Talyaaniga iyo 6 dal oo kale oo Yurub ah oo ay kamid yihiin Jarmalka Faransiiska iyo Malta ay ogolaadeen inay qaabilaan qaar kamid ah muhaajiriintan 11 maalin ayaa la isku khilaafsanaa wadanka aqbali doona qaxootigan booliska Israa'iil ayaa sheegay in qof dumar ah oo reer Falastiin ah ay toogasho ku dileen iyada oo sida ay sheegeen isku dayday inay mindig geliso sarkaal ka tirsan ciidamada amniga Israa'iil oo ku sugnaa bar control oo duleedka Jerusalem ku taala haweeneydan wali lama sheegin magaceeda bartan control ee u dhaxaysa Jerusalem iyo daanta galbeed ee la haysto ayaa si ku meel gaar ah iminka loo xiray madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa ku gacan saaray baaqyada loo jeedinaya ee ah in uu qabto doorasho cusub oo madaxweyne si xal loogu helo xaaladda cagaran ee dalkaasi hogaamiyaha mucaaradka Guaido ayaa madaxweyne ku meel gaar ah toddobaadkii hore isu caleema saaray iyadoo Mareykanka iyo dalal badan oo Latin America ah ay aqoonsadeen laakiin Ruushka Cuba iyo Mexico ayaa la saftay Maduro hadaba maxkamadda sare ee dalka Venezuela ayaa Mr Guaido ka mamnuucday inuu dalka ka baxo iyadoo sicir bararkuna uu cirka isku sii shareerayo cuntadana ayba dalka ka sii yaraatay iyadoo hardanka ay dadka caadiga ahi dhibaato badan ay ku hayaan haddii aad doonayso inaad dareento dhibaatada Venezuela halkan ayaa ah meel aad ka bilowdo waa Petare oo ka mid ah goobaha isku raranka ah ee caasimadda Caracas waa xaafado lagu yaqaanay taageerayaasha madaxweyne Nicolas Maduro laakiin luqluqyadan gaajadu ay ka jirtay hadda waxay u ooman yihiin dadku isbedel sida Marilyn oo ah hooyo aan shaqo hayn oo 6 caruur leh marka ay seexdaan iyaga oo gaajaysan ayay tiri waxay ii sheegaan in calooshu gaajo daraadeed u xanuunayso waxaan siiyaa biyo iyo sonkor sababtoo ah wax kale ma hayo waan iska ag seexdaa ilaa subaxa kale oo cunto u raadiyaa waxaa lagu jiraa halgan joogto ah Caracas waa magaalo dukaamadii eber yihiin waana inaad si qarsoodi ah u duubtaa sicir barar dartii ayaa cuntadii loo goyn waayay mushaarka bishii oo dhanne 3 kooka ayuu kuu iibin karaa waa wadan ku jira xaalad badbaadin dadka qaarkiina qashin qubka ayay ka raadsadaan waxay cunaan qaar badan ayaa ka dhursugaya Juan Guaido maamulku wuxuu ku sii adkeynayaa hogaamiyahan da'da yar ee mucaaradka ah oo laga mamnuucay inuu safro markii aan la kulmay waxaan weydiiyay inuu dhiig badan u daadanayo inuu dadka ugu yeero banaanbaxyada Caracas hoy es la ciudad más peligrosa
Caracas waa magaalada ugu halista badan adduunka ee dadka lagu dilo. Waa halis in halkan lagu noolaado. Laakiin dadkii ayaa is-abaabulay si caalamku u arko waxa halkan ka dhacay. Taageero ayaanu ku helnay marka banaanbaxu waa halis loo baahan yahay. Juan Pablo Pernalete wuxuu qaatay halistaasi banaanbixii ugu dambeeyay 2017 ee dawladda looga soo horjeeday. waalidkii ayaa qolkiisa ka dhigay goob xasuus. Wuxuu ahaa 20 jir basketball u ciyaara dalkiisa. Waxay sheegayaan in loo dilay isagoo dalkiisa wanaajinaya. ciidanka qaranka ayaa xabad afsaaraha ku dilay. maxaana wiilkayga uga toogan lugaha ama gacmaha. waxay u dileen oo keliya inuu mustaqbal wanaagsan u doonayay dalkiisa. sida qaar badan oo kale, Avera waxay aaminsan tahay in isbeddel uu imaanayo, taasina uu sabar u keeni doono. Laakiin waxay ka cabsi qabtaa in dhalinyaro badan ay Venezuela naftooda ku waayi doonaan. وهاجاك مرة الواحد نجلا سعون كرتان BBC Somali Facebook فضلاً هذه BBC News Somali هل كاسي واد كهل دونتو مقالة فلقين ديرادا يوررك وجوين سيادو هالشورك يوجدن بالصومالية يعلم كنا نجلا سعو BBC Somali تويتر يولبه إنستغرام weli waxaad daawanaysaan oo qaybta dambe ee barnaamijkeena aad ku daawad doontaan toogashada jirdilka iyo kufsiga oo ay dhibanayaasha rabshadaha Zimbabwe ku eedeynayaan booliska inay xoog uga hortageen dibadbaxyada. wararkaasi warar kale ayaad qaybaha dambe ku daawad doontaan ee qadar yar oo nasasho ah kadib ayaanu isku soo noqon doonaa. ولو حدا ونسان عاوي عالمك وانيقو محمد عبد الحلال بلان حسوسي قضبة عاو ورركينا قواوين مدعدا ugu sareysa dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo wada kulmay markii ugu horeysay taniya markii ergeyga qaramada midoobay laga eriyay dalka Soomaaliya. nolol adag oo muruga leh ayaa lagu soo waramaya iyadoo banaanbaxyada dawladda Venezuela looga soo horjeedinay halkoodii ka sii socdaan warbixinayaanu idinkaga sheegnay mar dhaweyn. wagaag xaaladda magaalada Jigjiga ayaa degan kadib markii ay ka dhaceen rabshado ay 2 qof ku dhinteen. rabshadaha ayaa magaalada ku baahay waxaanay sababeen in bandow lagu soo rogo magaalada Addisi. waxaa la arkay dad badan oo isku soo baxay oo taayaro gubay arrintaas oo saameysay suuqyada magaalada Jigjiga. rabshadaha ayaa horaantii u dhaxeeyay dad Masiixiyiin iyo dhalinyaro Soomaali ah. haddaba waxaa qadka si toos ugu jira wariye Cabdi Naasir Xikam oo ku sugan magaalada Jigjiga. Cabdi Naasir, haddii aad maqlayso maxaa ugu dambeeyay rabshadaha magaalada Jigjiga halkee wax marayaan imika? xararow shalay casarkii wax ka dambeeyay ma jirin oo dhibaato oo dhacday. shalay casarkii ayaa ugu dambeysay muddo badanna meynaba soconin rabshadahani. dabcan xilligan oo kale ayaa sanad walba qaysaska diinta Kiristaanka ka tirsan ayaa waxay tagaan meel la yiraahdo Kojar kaniisad ku taala oo degmada Jilacsanay ku gaarkeeda. haddaba iyagoo soo socda ayaa la shiiday oo dhalinyaro Soomaaliya ay shiideen markii magaalada Jigjiga soo galeen qaysaskii. kadibna gaarigoodii ayuu murayda ay ka jabeen kaniisadda ayay toos u tageen waxayna ku bilaabeen dhalinyaro cadhaysan oo halkaa joogta. nin boolisa oo kaniisadda iyo agaarkaas oo dhan waardeynayay qorigeena way ka qaateen isagiina waa dhaawacmay ilaa haddana koom ku jira marka dhibaatadu halkaasi markii hore ka amba qaaday. sida loo yahayna 2 ruux ayaa ku dhimatay rabshadahaas, 3 ruux ilaa 4 ruuxna way ku dhaawacmeen. waa gartay ciidanku weli magaalada ma ku sugan yihiin oo ma joogaan? sidoo kale ma jiraan dad loo xirxiray rabshadaha dartood? ilaa hata wax la xidhay oo rabshadahan dartood loo xidhay ma maqal. laakiin ciidamada militariga iyo kuwa liyu booliska ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo waliba booliska caadiga ah magaalada way joogaan. waxaana ka warqabtaa oo hadalkaaga hadda ka dhex muuqday in magaalada bandow lagu soo rogay. hay'adaha nabadgelyada ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo waliba ciidamada militariga ee ka howlgala magaalada Jigjiga ayaa waxay sameeyeen isla markiiba kulan degdeg ah waxayna soo saareen dhowr qodob. waxaana akhriyay arrintaas hoggaanka nabadgelyada ku-xigeenkiisa Cabdullaahi Maxamed Cabdi. wuxuuna ugu muhiimsanayd in 4 ama 10 fiidnimo xilli hadda mar dhow wax yar nooga harsan yihiin. intaa kadib aan magaalada la soo socon karin wax ka baxsan gaadiidka degdega ee loo yaqaano ambulance
iyo inaan shirar badan la qaban karin oo ayna dawladdu ayna ogeyn sidaa darteedna siyaaba waa inaan la xaq dhowro ama waa inaan ilaalo gaara loo yeesho ayuu hoggaanku yidhi meelaha cibaadada iyo weliba goobaha ganacsiga ee waaweyn. waa gartay xikam sidee arrintaas u saamaysay dadka caadiga ah ee noloshooda ama suuqyada aadi jira ama carruurta iskuullada tagaysay? rabshaduhu dabcan way saameeyeen oo wadadan isku xidha magaalada iyo Axmed Gurey iskuulka la yiraahdo ilaa hadda way xidhnayd oo maaragtay gaariyaasha mayna socon laakiin dadka caadiga socday marka way dabcan saameynaysaa rabshadahaasi laakiin muddo yar ayaa lagu saaftiray. waa gartay rabshadahani xiriir ma la leeyihiin dagaallo iyo rabshado hore ugu dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada isla degan gobolada? tani wax yar waxaan isleeyahay way ka bedelayd in dagaaladan ama xadadka ku saabsan ama dhulriix way ka bedelayd waxay isu dabeeceeg yihiin maalmaha dhaweey shaqaqadii ka socotay magaalada Dirdhaba. Cabdinaasir Xikam aad iyo aad u mahadsan tahay. wuxuu ahaa wariye Cabdinaasir Xikam oo magaalada Jigjiga si toos ah qadka Skype-ka uga jiray. booliska dalka Zimbabwe ayaa dalbaday in dadka la kulmay tacadiyada in ay soo baxaan oo ay booliska u sheegaan dhibkii gaaray. dadka caraysnaa oo aad u fara badan ama ka caraysnaa qiimaha ku kacay shidaalka ayaa muddo 2 isbuuc dibad baxayay. balse waxaa jira warar sheegaya in booliska ay awood u isticmaaleen dadkaasi. madaxweyne Mnangagwa ayaa sameeyay guddi baaritaan oo uu ku sheegay inay soo baarayaan xadgudubyadaasi. Muriid Xaaji Cabdi ayaa faahfaahinaya. xabad ayaa ku dhacday isagoo ordaya. askarta ayaa xabad igu soo riday. askartu way garaaceen. ciidamada amniga Zimbabwe ayaa weli weerara ka wada wadooyinka Harare. dumarkuna si tartiib ah ayay u soo baxayaan inkastoo ay ka baqayaan in la aqoonsado. 6 haween ah ayaa noo sheegay inay askarta kufsadeen. way dharbaaxeen waxay dhaheen galmo ayaan kaa doonaynaa anigana waan baqayay. dhibaatooyinkan ayaa soconaya 7 iyo bar kadib markii ay dibadbaxyadu soo afjarmeen. weeraradooda oo sii badanaya ayaa u eg olole cabsi gelin ah. maxay weeraradu weli u socdaan? maxaa weerar loo soo qaadaa saqda dhexe oo guryaha dadka loo galaa loona dhibaateeya si aan kala sooc lahayn? ninkan mucaaradka ah wuxuu ku dhuumanayaa magaaladan ay rabshaduhu waxyeeleeyeen maalmihii tegey. qoysas iyo xitaa xayawaanada ayaa lagu waxyeeleeyey halkan. maxaad ka cabsanaysaa? waxaan ka baqaa in la afduubto kadibna la iwaayaba. xisbiga mucaaradka Zimbabwe ayaa diidaya inay wadahadal la yeeshaan dawladda inta ay ciidamadoodu wadooyinka taagan yihiin. waxaan ku jirnaa xaalad degdeg ah haddii aan lagu dhawaaqin xitaa waa xaalad aan ku jirno. sidoo kale waxay ku tusinaysaa inaan dib ugu laabanay maalmihii hore ee kala talisnimada, maalmihii kala taliyayaasha, maalmihii argagaxa iyo cabsida. xubin sare oo ka mid ah militariga ayaa sheegay in weeraradani ay sii socon doonaan. madaxweynaha ayaa ogolaaday. askartana waxaa loo sheegay inay isticmaalaan ulo iyo budad oo aanay rasaas isticmaalin si ay u joojiyaan. xukuumadda waxay ku celinaysaa inay nabadda uun soo celinayso. sidoo kale baaritaan lagu samayn doono gaboodfallada ay askartu geysanayaan. waxaan leenahay la kaalaya eedeymaha. waan baaraynaa. ma jiro qof sharciga ka soo horjeedo. laakiin qareennada Zimbabwe oo ku bannaanbaxay Harare ayaa leh sharciga waxaa ku xadgudubtay dawladda oo ku socota inay dadka cabsiiso oo ay dhadhansiiso ciqaab wadareed. waagabla markan haddii aan eegno wararka ciyaaraha ee caawa, kulamadii horyaalka Ingiriiska ee xalay, rajada Manchester City ee koobka inay hanata ahayd ayaa nuxuus sii noqotay kadib markii ay dharbaaxa kala kulantay kooxda Newcastle. dhanka kalena kooxda Manchester United ayaa barbaro la gashay Burnley halka Arsenalna ay 2-1 ku garaacday Cardiff. caawana ciyaarta Liverpool ay la yeelanayso Leicester City ayaa indhaha lagu wada hayaa ciyaarta soo xiisa gaar leh. haddii ay badiso waxa ay sii fogeyn doontaa dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka Ingiriiska. sidoo kale Chelsea ayaa la ciyaari doonta Bournemouth.
لاعبka weerarka uga ciyaara kooxda Paris Saint-Germain Neymar ayaa ka maqnaan doona labada ciyaar ee ay kooxdiisu la yeelan doonto kooxda Manchester United koobka Champions League sabab la xiriira dhaawac lugta ka soo gaaray 10 toddobaad ayuu garoomada ka maqnaan doona Neymar ayaa ku dhaawacmay ciyaartii labada iyo eberka ay ku tumeen Strasbourg arbacadii la soo dhaafay Afrika waa qaarad aad u ballaaran deegaano badan oo ku yaalana way adag tahay sida baabuur loogu gaari karo meelaha qaar sababtaas awgeed waxaa jira baahi badan oo loo qabo diyaaradaha yaryar oo gaarka loo leeyahay oo meel kasta ka kici kara kana degi kara labada shirkadood ee Koonfur Afrika laga leeyahay ayaa ka faa'iideysanaya fursadahaasi iyaga oo sameynaya diyaarada yaryar Cabdixaafid Caawil Ismaaciil ayaa ka waramaya afrika waxaa ka diiwaan gashan 481 diyaaradood oo gaar loo leeyahay diyaaradaha ugu badanna waxaa laga heli karaa dalalka Nigeria iyo Koonfur Afrika laakiin wali qaaradda waxa ay ka dambaysaa Mareykanka 12,000 oo diyaaradood ayaa gaar looga leeyahay iyada oo aan warshadan ku taala Koonfur Afrika aan lagu samayn diyaaradaha waaweyn laakiin waxa ay isku dayayaan inay buuxiyaan baahida Afrika looga qabo diyaaradaha yaryar ee gaarka loo leeyahay Afrika hore ayay u socotaa diyaaraduhuna way ku yar yihiin runtiina halkan ayaanu ka bilaabi karnaa waxaanu noqon karnaa horyaalka diyaaradaha Afrika way fududahay in la arko faa'iidada diyaaradaha gaarka loo leeyahay looma baahna in saf dheer aad gasho xilliga aad doofaysana adiga ayaa dooranaya arrinka qiimaha ayuunba isugu soo ururaya diyaaradahani waa 130 ilaa 180 kun oo dollar diyaaradani waa tii ugu horeysay oo nooceeda ah waana diyaar hawada ayaa lagu baashaalayaa suuqa ayay la qaybsanayaan diyaaradaha waaweyn iyaga oo $1 ka qaadaya dadkii halkii kiiloomitirba halka ay shirkadaha waaweyn ku kacaan 4 jeer in ka badan waxaanu rabnaa inaanu halkan samayno in dadka caadigihi ay diyaarad khaas qaadan karaan oo ay noqdaan wax jaban shirkadani 150 diyaaradood oo yaryar ayay ka duulisaa madaarada Koonfur Afrika waxaana qaadi kartaa ilaa iyo 4 qof oo rakaab ah meel kasta iyo mar kasta ugu dambeyntiina waxaanu idinkaga tagaynaa dabaaldega sanadka cusub ee Shiinaha bal eeg Malaysia libax ciyaaraya oo dhaqan ahaan loogu dabaaldegi jiray ayaa sanadkan la geeyay biyaha hoostooda ee magaalada Kuala Lumpur dhaqanka Shiinaha ayaa sheegaya in ciyaarta libaxa ay isha xun ka xijaabayso nasiib wanaagsan uu keenayo ama dadka uu nasiib wanaagsan u keenayo xusno wararka ugu dambeeyay ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan mar kale dib idin kulmeynana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo habeen wanaagsan